kulan qaadan lagu ururinayo dhamaystirka dhismaha dowga cad oo ah dariiq isku xidhaya xeebta Ceel Sheekh iyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London. kulankan oo ah mid ay soo qaban qaabisay hay'adda dhanka horumarka ee East African Development oo iyadu dhawaan la wareegtay mas'uuliyadda qaadan u soo ururinta dowga cad ayaa waxa isugu yimid dadweyne fara badan oo reer Somaliland ah oo diyaar u ah dhamaystirka dowga cad oo isagu soo jiitamayay muddo 2 sano. kulankan oo ay ka hadleen dad kala duwan oo isugu jira aqoon-yahano culimaa u diin ay ka mid yihiin Sheekh Maxamed Cusmaan, Sheekh Saciid Maxamed Faarax, Dr. Maxamed Cali, gudoomiyaha hay'adda EAD Ahmed Kadleeye iyo sidoo kalena gudoomiyaha jaariyadda Somaliland ee galbeedka magaalada London Imaan Maxamed Ciise iyo Abwaan Aadan Muuse Haybe oo halkaasi isagu ka jeediyay maasooyin ugu tala galay horumarka wadooyinka Somaliland oo ku dhiirigelinayo bulshada isagoo sidoo kalena halkaasi ka jeediyay maaso ugu tala galay dowga cad. waxa kulankaasi ka hadlay isla markaasina warbixin ka jeediyay halka uu marayo iyo sida uu u bilaabmay dhismaha dowga cad injineer Cali Cabdi Sarajoog oo kamid ah injineerada gacanta ku haya dhismaha dowga cad waxaana injineerka oo booqasho ku jooga dalkan si uu uga hawlgalo hadaladiisii ka mid ahaa sida tan. hase ahaatee xogaagii tabarucaadka ay noo soo dirteen halkan dibadaha ka soo dirteen hawba badnaato maartay UK-gu iyo dibadaha kalaba iyo dhulkan carabtaba wixii aanu ku qabanay dhawaan markii waftigii qolooyinkii halkan lacagta ka soo diray ay yimaadeen waxaanu ku qabanay ay arkeen malaha dee ku aragtay sawirrada ee yaabay indhaha soo baxay يعني مشروع يعني دي الدولة يا أي كم بحكي كرتون عن فرح الله قال له إنه بيل ونكسر مرينا هنا يا توجي هالكم بورتنا بتشوفين إنه أي باوردي يرمري ترين وحاول تتكلمين ترين والركاب كو كسر دقيق كل عنا دراول كيه باوركو نسيب كود هاك قادان ما أنت وحشانية طبعاً مرنا أيها اللي يتقلامي بان صار إلهي با محله. kulankan oo ah kii ugu horreeyay bulshada ku dhaqan UK loogu soo bandhigo qaaraan ururinta dowga cad ayaa lagu ururiyay lacag dhan $10,000 lacagtaasi oo bilow u ah qaaraan la doonayo in loogu guro dowga cad si loo dhammaystiro. waxaana hay'adda EAD ay daabacday ilaa iyo 5,000 oo tigidh oo ay midkiiba ugu tala gashay in lagu qaato amaba ay ku gaadhsiiyaan muwaadiniinta Somaliland ee ku dhaqan dalkan Britain si ay uga qayb qaataan midkiiba lacag dhan £50 una dhigmanta ilaa iyo $80 taasi oo ay rajaynayaan inay qayb ka qaadato dhammaystirka dariiqa dowga cad oo isagu 2 sannadood باسمه سعودي. عبد الله محمد علي، تلفزيون قناة Somaliland، لندن.